إن كان تقنية تفلو دل جسيرات كينيا ردنا على كونفريت كسران بدوين تباسيفيكا جهة أهانا ودحية أستراليا إيه هواي كنا يلا عرف كقارد أوشيانا والدليرة دبنا وهسبدل كعملة إن بدنو دونيدا ناهيلا دبتونيسو ودنيرهاني waxa uu qarka u saaran yahay in baddu cunto. Climate change and sea level rise are deadly and existential threats to Tuvalu and low-lying atoll countries. Isbeddelka cimilada iyo koritaanka joogga baddu waa halista ugu weyn ee dalkeena Tuvalu. Badda ayaana cunaysa. Waxaanuna noqon karnaa dhibanaha ugu weyn ee isbeddelka cimilada dunideena. Dal jasiiradeedkan badda Pacific ku gadaaman tahay ee labadiisa cirif isu muuqdaan. waxaa dadkiisu noqdeen qaxootigii ugu horreeyay ee isbeddelka cimilada kaalmada kaliya ah ee dadka dalkani u baahan yihiin waa in badda laga badbaadiyo dalal badan ayaa ku garab istaagay inaan daadku la tegin qaar ay ka mid tahay Australia waxa ay dadka dalkan siiyeen deegaan ay u guuraan ha yeeshee dadka dalkani ma doonayaan inay guuraan 26 kiiloomitir oo laba jibaaran ayaa baaxaduleedka Tuvalu ka kooban yahay tirada dadkiisa waxaa haatan lagu sheegaa 10,600 oo qof waxaana uu safka hore uga jiraa dalalka la aqoonsan yahay ee adduunkeena ugu dal iyo baaxaduleed yar